السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni labaad maanta oo Jimcaha taariikhduna ay tahay 12 bisha Luulyo ama Juulaay sanadka 2024 hadaba barnaamijkan kii ka horeeyay oo macluumaad aad u xiiso badan aan idinku soo gudbiyay waxa ka heli kartaan Facebook iyo YouTube-ka inta aan daawan inta daawatayna way ku mahadsan yihiin haddaba jimcahan waxaan idinku waynaa barnaamijkeena labaad qodobo muhiim ah waxa aad warbaahintu uga sheekaynayaan warbixin ku saabsan Yaxya Sinwar sidoo u nool yahay Yaxya Sinwar waa hogaamiyaha Gaza jooga ee Hamas ee Israa'iil ay raadinayso sidoo u nool yahay sidoo u la xiriiraa madaxda qadar joogta ee wada hadallada ku jirta sidee u hogaamiyaa muqaawamada dagaalamaysa haddaba arrintaas waxay noqotay wax la yaab leh warbaahintii cibriga kuwii carabta ayaa aad maalmahan waxay uga hadlayaan warbixino la isla dhexmarayo halkuu ku sugan yahay qoyskiisu xaggee joogaan yaa og meesha uu isagu ku nool yahay haddaba warbixin laga diyaariyay sheekooyin cajiib ah oo arrinta ku saabsan ayaanu barnaamijkeena labaad ku faaqidi doonaa waxa soo kale barnaamijkan idinku hayaa Masar oo war soo saartay barnaamijkan kii ka horeeyay waxaan idinku sheegay in warbaahintu ay ka hadlaysay Masar iyo Israa'iil inay qorshe isla wadaan ku saabsan qalab markaa in lagu xiro xuduudda oo Masar ay maamusho haddaba masaaridu war ay soo saareen waxay leeyihiin warkaas waa been warbaahinta cibriga faafinaysa annagu shaqo kuma lihin hawshaas Hamas aliyaasiinkeeda uma soconay taagiin haddaba sheeko kale oo la yaab leh ayaanu barnaamijkeeda kugu haynaa waxa soo kale barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa Jarmalka oo aflabadii qaylinaya maanta wuxuu leeyahay Ruushku waxay dili gaareen oo aynu ogaanay nin khatara oo halisa oo ganacsadaha oo warshadaha hubka soo saara Jarmalka iskale haddaba sidee wax u jiraan qodobadaasi iyo wixii warar soo kordha barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS bangi kulan wanaagsan jimco wanaagsan khiyaaray ku soo dhawaada barnaamijkii labaad ee aan idiin soo gudbinayno macluumaad aad u xiiso badan ayaynu barnaamijka idinku haynaa sheekada ku saabsan sidoo u nool yahay Yaxya Sinwar warbixin cajiib ah qaybta dambaan geenaynaa ayaan idinkula wadaagi doonaa balse waxaan marka hore ka hadli doonaa Jarmalka ayaa maanta qaylinaya aflabadii waa war sidee wax u jira ninkii Putin ahaa meel naga soo galay maxay ahayd in ganacsada ah oo warshadaha hubka ugu waaweyn iskale Jarmalka ayaa waxaa la yiri waa la dili gaaray hadaan laga soo gaarin sidee wax u dhaceen waliba warshadihiisa hubka iyo waxa kan iyo dawladda Jarmalka ka iibsata waa hubka ugu badan ee Ukraine la siiyay وعب وحكومة ريبوتي
qof kasta oo ku lug yeesha hawshan maalin inuu ka daba tegayo uu khaarijinayo. waa cajiib ninka putin a imtixaan waayo. haddaba wargeyska la yidhaahdo asharqul awsad ayaa wuxuu qoray jarmalka aada buu u caraysan yahay sabab ku saabsan mu'aamarad ruushku ay maleegeen taasoo lagu dili rabay ninka madaxda u ah shirkadda la yidhaahdo Rheinmetall oo iyadoo hubka samaysa. haddaba warbixinta way sii socotay. waxaa leeyahay siyaasiyiin u dhashay waddanka jarmalka ayaa muujiyey inay aada uga caraysan yihiin warar soo baxay oo uu faafiyey telefishinka maraykanka ee la yidhaahdo CNN kaasoo laga soo xiganayo mas-uuliyiin maraykan ah in ruushku ay maleegeen mu'aamarad ka dhan ah in la maaragtay nin u dhashay jarmalka taasoo lagu dili lahaa. ninkan wuxuu iska lahaa shirkad hubka samaysa oo jarmalka ku taala oo la yidhaahdo Rheinmetall, waana shirkad la sheegay in dowr muhiima ay ka qaadatay in kaalmada military ee jarmalku uu siinayay Ukraine iyada markaa looga gadayay. haddaba warbixinta CNN ay faafisay waxaa lagu sheegay khamiistii shalay in mukhaabaraadka ama sirdoonka maraykanku ay soo ogaadeen qorshe ku saabsan in xukuumadda ruushku ay qorshaysay in gaadmo lagu khaarijiyo ninka la yidhaahdo Armin kaasoo la sheegay in uu ahaa agaasimaha fulinta ee shirkadda Rheinmetall oo hubka samaysa jarmalka. haddaba waxaa leeyahay ninkan waxaaba la dili gaaray bilowgii sanadkan oo markaa qorshihiisu ahaa in laga takhaluso sida telefishinka CNN uu sheegayo. cajiib waay. jarmalkii hadday ogaanayaan maraykankana mar horaa idiin sheegnuu leeyahy. laakiin warar kale oo warbaahinta jarmalka waxay leeyihiin dowladda jarmalka laftirkeedu xogta ha ka hesho maraykan ama meel kale ha ka heshee waxay muddadii dhowrkii bilooda ugu dambeeyay aada ula socotay oo ilaalinaysay ninkaa madaxda ah. meelaha qaar markuu aadayo ilaalaa la daba dhigayay. macnaha in sirdoonkii maraykanka ay siiyeen xogta waa 100%. in iyagu ay xogta heleenna way dhici kartaa, laakiin inta badan xogaha noocaas waa la kala qaataa. laakiin markaas baysan sheegin xogta ay heleen jarmalka. laakiin hadda waxa banaanka keenay oo dadka ogeysiiyey inay arrintaa jirto oo Putin ninkaa ku quraacan gaaray waxay sheegayeen telefishinka maraykanka ee la yiraahdo CNN. waayahay qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. sheekadii ku saabsaneed Yaxya Sinwar iyo wacdarihiisa iyo sidoo wax u dhigay waa noo soo socdaa, balse markan waxaynu galaynaa sheeko kale oo ku saabsan Masar oo qaylinaysa oo leh been way warka soo baxay. hadaaya barnaamijkaygii koowaad horta inta badan ogaada barnaamijyadeedu way isku xiran yihiin. macluumaadkaas iyo macluumaadkan inta badan way wada xiriiraan. barnaamijkan marka saacada ka hor aan soo daayay ee maanta oo jimco ahayd waxaan ku sheegay in warbaahintu ka hadlayaan maantay oo jimco ah nimankan masaarida iyo Israa'iil wada hadal hoose inay wataan oo is afkarteen in Masar lagu wareejiyo meesha, Israa'iil iska baxdo. Masarna ay tiraahdo qalabaa lagu xiraa meesha, joogis kale ma joogayne qalabkaasaan la soconaynaa. Xamaas marka in la boojeeyo oo maaragtay la ciyaarsiiyo oo masaaridu si tartiiba xuduudku ay kusoo galaan oo markaa yuhuuddu ay baxdo. yuhuudduna waa iideeda hadday baxdo mar nimankan qoorta isu galayaan way ogtahay. xamaas way hanjabeen iyo muqaawamada kale waxay yidhaahdeen cagta haddii lasoo dhigo Gaza ciidan ajnabi wuxuu doonaa hada nagtaan ka gelinaynaa. marka Israa'iil wayba rabtaaba inay uga dhex siibato. marka warkaas markuu soo baxay guux fara badanaa soo baxay. isla markii muqaawamada qaar ka mid a waxay yidhaahdeen hadday sheekada Masar ku dhaqaaqdo waa noo dagaal. ciidankii ay carada keento Gaza waxay la mid yihiin kuwa yuhuudda hadda jooga ee aan nagta ka gelino maalin walba. sheekadu markay arkeen masaaridu marka inay kululaatay way ka baxeen. inay u qarsoon tahay sirtii weli waa laga yaabaa, laakiin marka maxay leeyihiin aan idintu soo warbixin laga qoray sheekadan. haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay warbaahinta masaarida ayaa goordhow waxay sheegeen in ay beeninayso xukuumadoodu inay jiraan warar ku saabsan wadahadallo dhinaca amniga ah
oo u dhexeeya israa'iil iyo masar oo ku saabsan dhinaca xuduudda gaza. haddaba warbixin ka soo baxday masaarida ayaa maantoo jimcaha gelinkan dambe waxaa lagu sheegay inaanay jirin wax wada hadallaa oo masar iyo israa'iil u dhexeeya oo ku saabsan xuduudka u dhexeeya masar iyo gaza sida ay faafiyeen warbixinno hore. laakiin hadda waxaa arrintan ka hadlay telefishinka rasmiga ee dowladda masar ee layidhaahdo alqaahira al ikhbaariya. haddaba wararkan waxaa la sheegayaa markaa in dowladda masar ay ku tilmaantay kuwa been abuura aan waxba ka jirin. yaa yaqaano marka waxa ma beena ma runaa, laakiin dadka wax tacliiqiya waxay leeyihiin sheekadan way jirtaa, masar waa lagu bartay, markay aragto guuxa gadaalay u sikataa, laakiin filinkan way ku jirtaa. filinkan iyo filinkan israa'iil ay jirayaan in israa'iil meesha ay ka baxdo oo maaragtay masar soo gasho, laakiin sidii lagu soo gelin lahaa iyo nidaamkii ayaa la iska rabaa. marka sheekadaas iyaduna way socotaa, laakiin xamaas nimanka la leeyahay niman si sahla lagu gaadi karo ama lagu heli karo maaha. qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijka aynu kaga hadlaynaa waanta wuxuu yahay ninka la yidhaahdo yaxya sinwaar ayaa laga qaybiyey. horta waxaa la yidhi ninkan gaza madaxda ka ah israa'iil ay soo qaban weyse, meeluu ku jira ay aqoon weyse, sirdoonkii maraykanka kuwii reer galbeedka wixii oo dhan ay waayeen. nin noocee waayo, bini aadam miyaa mise ma ahanaa la isku qabsado, sidee wuxuu jiraan. ninkan dee maalin walba xiriiruu la sameeyaa madaxda xamaas, siduu ula xiriiraa sirdoonka shabakadaha meesha iyo xiriirka iyo ma ogaa karaan miya, maxaa la isticmaalayaa waxyaabo badan oo marka waxaa yimid su-aalaha dadka yahuudda isweydiinayaan. waxay yidhaahdeen aawe teknolojiyadii naloo sheegay, adinka keliya ma ahane macallinka weyn iyo xertiisii iyo aawe wixii, sidee ninkan ku ogaan weyseen. waxaa leeyahay wada hadallo kasta oo ka dhacaya qadar isaga waa in lala soo xiriiraa, nimanka garoonka ku jira ay sheegaan saasii saasaa okaya, nimanka qadar jooga waxaasii sameynayaan. marka ninkan suu nimankaa kula xiriiraa, ninkan yaa waardiyey, intuu ku nool yahay, sheeko marka cajiibaa soo baxday. marka warar xanxanaa la helay marka ninkan inuu 3 nin keliya ay og tahay meeshuu joogo. 3 nin keliya ayaa ogaa la yidhi ninkan meeshuu joogo sidiisaba. ma runaa ma beenaa lama yaqaano, xamaas weli ma beenine, laakiin warbaahintii carabta iyo kuwii yuhuudda iyo kulli waxay leeyihiin xogahaasaa hadda laga helay ninkaas. 3 qofaa og. 3 qof yay yihiin 3 qof oo wejigu u duuban yahay oo waxay yihiin aan la garanayn oo qoryo sita oo la socda isaga ayaa yaqaana meeshuu joogo. iyaga ayaa ku xira markii adduunka waxaa ka socda usoo tabiya. ninkan ma waxogtaa qadar iyo iyagaa isku xira, ninkan 3daas ninaa la joogtay leeyihin. haddaba warbixinta sida looga diyaariyey haddaan idin tuso, marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa joornaalka la yidhaahdo The Times of Israel ayaa wuxuu qoray qeybtiisa af carabiga. waxa uu yidhi lama yaqaano meesha yaxya sinwaar uu joogo, laakiin waxaa la sheegayaa 2 qof ilaa 3 qof uun keliya inay garanayaan meesha uu joogo hogaamiyaha xamaas. haddaba warbixintii joornaalkan la yidhaahdo The Times of Israel wuxuu leeyahay way ku wareertay Israa'iil. haddaba warbixino kala duwan ayaa la helaa la leeyahay. telefishinka alcarabiya isaguna wuxuu ka sameeyey filim documentary ah oo xogo lasoo aruuriye ah. haddaba alcarabiya si aa arkaysaan waxay halkan kusoo bandhigtay ninkanu inaanay ka qasnayn oo kursigiisa uu iska fadhiyo oo uu iska leersanayo, meeluu joogo lama yaqaano. isla alcarabiya haddana waxay leedahay ninkanu 3daas qof ayaa ammaankiisa ilaalisa, bannaanka waxaa ka socda usoo tabisa, warbixinada siisa, nimanka kale iyo isaga kala dab qaada. haddana sawirka kale ee alcarabiya waxay leedahay yaxya sinwaar iyo nimanka qadar jooga ismaaciil haniya hogaamiyahooda way xiriiraan mar kasta, wada hadala dhex mara. sidee marka nimankanu maxay ku wada hadlaan, sidee loo ogaadaa. haddaba alcarabiya marka kale waxay leedahay
halkan ayaa loo malaynayaa ninkan inuu ku nool yahay. guday tahay lama yaqaano, god sida guryo oo kale u dhisan oo nal ka shidan yahay. haddaba sidoo kale godkii ayaa mar kale sawiro laga helay iyadoo caruur yaryar sida aad arkaysaan gabadhiisa waa la leeyahay iyo caruurtiisa iyo isaga iyo godadkaasay ku nool yihiin oo sida guri ah dhulka hoostiisa ayaa la leeyahay. waa cajiib, saana loo malaynaa, saanay tahay ninkii saddexdaas qofaa loo malaynaa, labaa loo malaynayaa raba ninkan maa la keeno. hadda waxay ku leeyihiin godadkan iyo waxa kan la keenay iyo caruurtiisa ay joogto waxay ku yaalaan Khan Yunis. haye waa meeshii uu ku dhashay isaga uu kasoo jeeday, meelahaasuu godad ku leeyahay. Khan Yunis meeqa jaray gashay Israa'iil, maxay godadkii u keeni weyse? waa yaab. marka dadka yahuudda waa qeylinaaya, waxay leeyihiin annaga mar dambe ma noo sheegi kartaan teknolojiyad sarraysaan haysanaa iyo kan iyo warnimankaasee u wada hadlaanay dheheen, keena warkooda. ninkan intuu ku dhuuntaa intuu galaa suu nimankan kula hadlaa aawo waxa 100 diyaaradoodu qarashka badan ku baxo macalinka weyn ee xirtiisa habeen iyo maalin Gaza saas u duulay sidee wax u jiraan? ma nimanka dhulka hoostiisa wax maray ku wada hadlaan? waa la yaab. arrintaas ilaa hadda marka cid og male waa lagu wareeray. marka siday nala tahay waa sida hadda arkaysaa. barnaamijkii labaad intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta jimcaha. fakari aragti waxaa qabta noogu soo qor qaybta commenteska iyo fariimaha. haddaad ku cusub tahay barnaamijkana subscribe saar, youtube-kana follow garay, mar walbana barnaamijyada like gareeya oo share gareeya. haddaad nagala socotaan facebooka iyo youtube-ka. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno ikhyaaray meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.